waxaad moodaa maalmahan buuq badan baa socday, mawjado isdardaraya. Hadalladii aan anigu jeediyey oo aada loo wadwado, dad ka soo horjeeda iyo dad u riyaaqsanba, dad jecel dowladdan hadda jirta in wax laga sheego iyo dad difaacayaba. waxaa weeye haddii dadka madaxda ah dhaliil ay leeyihiin, waddada loo mari horta waa inaad baratid. waddadee loo maraa? innagu dad muslinaana, waxaa loo maraa waa in loo nasteexeeyo. nasteexada macnaheeduna in meediyaha la taga maaha, waa in si qarsoodi ah loogu tago oo wixii dhaliilo ah loogu sheego. sidaas ayaa shareecada islaamku ay qabtaa, sidaasaana sax. halla mudanayaal iyo marweyn, waxaa socda ololaha qiimo jabinta sanadka cusub ee Nilis Furniture Osoy Group. in ka badan 30 shay oo qiimahooda la soo jabiyay ayaa kugu diyaar ah. waxaan tuhunsannahay meeshii adayg iyo go'aan geesinimo leh looga baahnaa inaadan la imaanaynin. 100 goorna lagu sheegay wax tale oo kaa dhiman ma jiro. dad badan hadda social mediaha waxay soo dhigayaan xasan sheekh waxbuu ka sheegay, wuu naqdiyey ama wuu weeraray, qolyahan muxuu u difaacayaa? waxaan rabaa taas in aan qofkii rabo inuu daawoobo. waxaa weeye xasan sheekh nacolaad uma hayo, farmaajona uma hayo. xasan sheekh waanu tegay marar badan markii maamulka uu qabtay, si hoosaan oo la hadli jiray. arrinta uun aada loo sheego oon habeen meel uu asagu shir qabtay uu yidhi ha laysu yimaado oo wixii la doono ha lay weydiiyo. dadkii meesha tagee yaan ka mid ahaa. isla meeshaasna waxaan ka caddeeyey habeenkaa inaana ku tuhmaynin inuu yahay khayaan nin ama hantida dhacaya ama khaa'in ah, inaana ku tuhmaynin. waxaan idhi waxaan ku tuhmayaa go-aan jilaac. waxaa marka isweydiin lahu maxaa marka aad baa waxaa loo hadalhayaa xasan sheekh markaan saa ku lahaa, hadde goor wax badan joo waktigiisiiba dhammaad buu ahaa. hadde bal maa la sugo farmaajona waktigiisa intuu bal xataa ama dhammaad noqdo ama u soo dhowaadaba. fadhiga Lavera waa 995 pound oo kaliya. miiska qadada 299 oo kaliya. miiska qadada ee kala baxa waa 69 pound oo kaliya. arrinta qalbi dhagax maalan waa sax, waxay ahayd arrin aan loo baranin waddankan, dhaqan Soomaali aan ahayn, aada looga kululaaday. si haddii loo fiiriyo xanuun badan. laba sababood baan uga hadli waayey. arrinta qalbi dhagax waan eegay, naftayda markii hore fajicisa igu noqotay. arrintii markaan fiiriyey, horta maxaad uga hadli weyday marka la yidhaahdo, horta ma la weydiiyo ma ka hadashay ma la yidhi. waan ka hadlay, laakiin hadalkaa midna wuxuu yahay mid sare, midna waa mid hoose. hadal hoosaan ka hadlay, dadkii ay khusaysay baan weydiiyey, maxay ku dhacday yaan u weydiiyey, waa la ii jawaabay. taasi waa qodob. qodobka labaad, waxaan arkay
arrintan oo la cuskanayo oo la rabo dowladdii in lagu dumiyo kor haddaan u hadli lahaana hadda waxaan la mid noqon lahaa oon kuwaa danaha wata yaan u ekaan lahaa kolkaan hoos ula hadlay waxay ii sheegeen dee in badan oo ka mid inaan ku qancaa dhici karta war anigu waxaan difaacayaa soomaali anigu dowlad gaara xukuumad gaara nin gaara ma difaacayo waxaad ogaan doontaan ilaahay hadduu cimriga inoo daayo markii ay qolyahani meesha ka tagaan oy dowlad kala timaado haddii sidoodii ayagoon sal kaba dhigin lagu soo boodo sidaan kuwan u difaaci un baan u difaaci doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo anoon ogeyn hadda kuwa ay noqon doonaan anigu waxaan rabaa waddankii in la dejiyo in dhibaatada laga baxo 30 sano ku dhowaad ayaa wareer lagu jiray marka waxaan rabaa wareerkaas in laga baxa ayaan rabaa inaad wax badan ka ogaato ololaha socda soo booqo bartayda Facebook kadibna riix meesha ay ku qoran tahay December campaign 48 bilood interestigu waa free alaabtadana si bilaash ah ayaa gurigaaga lagu keenaya